waxaa goordhoweed noo suurto gashay inaan waraysano madaxweynaha cusub ee galmudug ee lagu doortay magaalada dhuusamareeb axmed cabdi kaariye qoorqoor. sahre cabdi axmed ayaa khadka telefoonka ee magaalada dhuusamareeb kula xiriirtay waxaana ugu horeyn weydiisay sida uu u arko doorashadiisa. bismillahi alxamdulilah salaatu wasalaamu ala rasuulillah. waa mahadsan tahay adiga iyo tiimkaaga v o a. doorashada la doortay adduunka o dhan baa lagala socday. doorasho muddo hawl soo socotay oo dheereed bay ahayd, geedi socod, nabadeyn, diyaar garow, baarlamaan, maaragtay wakti soo maray ayay ahayd oo la ogsoon yahay. marka waxaan sida ummadda soomaaliyeed aragto dhib baan u aragnaa oo ah inay si xor iyo xalaal ah doorashada ku dhacday, ku qabsoontay. aragtidaan ka qabnaa waa midaas soomaalida ka wada qabto oo tii saxraayada. dadka qaar ayaa waxa ay ku doodayeen in doorashadaada oo si dhib yar u dhacda wakti yar gudihiis intii ay socotay waktiga doorashada, iyo sidoo kaleeto hadalhaynta ugu badan ee maalmahan musharaxiin xataa iscasilay in aad ahayd musharax dowladda ay gacan siinaysay oo sidaas xilka ku helay. kuwaas maxaad ugu jawaabaysaa aragtidaas? marka hore inaan cidna u jawaabo ma rabo. waa tabashada iyo in laga sheegtahay waa wax iska jiri jiray, waa jiri doontaa. aniga inaan xilka isu sharaxo xaq baan uleeyahay. sanad iyo wax kasii badan baan musharax ahaa oo utaagnaa. inaan dawladda xiriir la leeyahay iyo wada shaqeynna sharaf bay ii tahay. anigu ma ihi dadka oo khilaafyada iyo qalalaasaha ka shaqeeya, anigu ma ihi, lagumana yaqaan. mar walba dawladda iyo wada shaqeynta iyo dowladnimada soomaaliya hore loosii wado, hore loosii qaado ayaan ka shaqeeyaa oo una taaganahay. marka dawladda inaan wada shaqeyn leenahay, inaan wasiir ahaa ka tirsan xukuumadda igama reebayso. maxmed caqabadna kuma ahan xaqa iyo xuquuqda aan uleeyahay inaan galmudug utaago amaan maadaankeeda usoo istaago. marka darasaskan iyo hawshiisana 8 bilood socday. maalin maalmood kuma dhicin, dhib yarna kuma dhicin. wakti dheer soo maray. dibshiisiyaa la sameeyey, barlamaan la xumaa la sameeyey, waxaa la sameeyey muddooyin dheer oo baarlamaanka kabacdi xataa lasii jiitay darasaraska oo waxyaaba fara badan laisku eegayama laisku xalinayay. ugu dambeynna maanta ay tahay 2 bisha 2 2020 ay soo dhamaatay madaxweynihii madaxweynkii in la doorto. horena uga sii horeeyeen gudoomkii baarlamaanka oo laga wada qayb galay. say og tahay dhammaan dhinacyada oo dhan ka wada qayb galeen tartanka, laga wada qayb galay baarlamaanka, laga wada hambageeyey, taana laga wada ahaa. waaya waxaa jirta in galmudug ay qaybsan tahay oo dhinacyada ahlu sunna markii la fiiriyo dhinaca kaleeto ee ayagana mucaaradka qaarkood ay taageerayeen musharaxiintii sheegay in adiga dhinac dowladda ay ku wadato oo aad sidaasi xilka ku raadinayseen dhinacay yihiin, dhinac uu xaaf yahay oo madaxweynihii hore ee galmudug uu yahay. marka dhinacyadaasi oo dhan oo kala jeedjeeda ayaa galmudug maanta jira, iyo adigoo xataa hadda dhinac oo timid dabcan. marka sideed u aragtaa darafyada galmudug iyo siyaasadda cakiran ee dhankaasi? waa mahadsan tahay walaashay. hor aan ku saxo, anugu ka dhinac ma ihi. baarlamaankii galmudug inagooda heshiiyey. madaxweynihii hore galmudug walaalkay axmed ducaale geelle uu qayb ka ahaa. habkii lagu soo fulay iyo odayaashii iyo ciddii uu kala shaqeeyay wasaaradda arrimaha gudaha. ahlusunna waljamaaca ay qayb ka tahay oo baarlamaanka haddaba maanta meel la doortay ay qayb ka tahay. lagu heshiiyey dhinacyada oo dhaneed ay ku wada ahaayeen heshiis ayaa anagana doortay. doorashooyinka iyo kala duwaanshaha siyaasadeed iyo wax kasta oo arrimaha ka jira kala aragtiya haddii aad la socotay maantaan sheegay, ummaddeedii si kooban ugu sheegay, waan la fariisanaynaa, waan la heshiinaynaa. geed walba iyo goob walbana waa ugelinaa, waan isqancanayna insha allah. cid kasta oo u aragta in wax naga waxalaysan yihiin ama wax si yihiin, wixii ay u aragta in wax qaldan yihiin, waxa oo xalka waa in la wada hadlo, waa in la wada fadhiisto, waa in la wada dhamaysto. iyadana diyaar aan unahay meel walba iyo goob walbay tahay insha allah waa ugelinaa.
waayo isla sidaasi dhankeeda haddaan wax kaa weydiiyo xaaf wuxuu sheegay barnaamijkeena wicitaanka uu sheegay dhegeystaha in uusan ku qancin wax kastoo dhuusamareeb ka soo baxa sideed xal ugu raadinaysaa dhinacaas inkastoo tira hadda waxbaan xalinayaa oo dhinacyada waa la fariisanaya xal waxaa laga raadiyaa walaal cid aan isku qanacsan hadii la isku qanacsan yahay ama la wada qanacsan yahay dee waa xal in raadiyo loo baahan yahay ma jiro marka waxaa malaya inay ku jirto ama ay ku kooban tahay kala aan kuduwanaansho hadii jiro doorashooyin haddii ay jiraan dhammaantood waa cadaynay inaan diyaar u nahay inaan sida ugu haboon iyo diyaarka ugu badan inaan ku bixino insha allah